Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Walaalayaal kusoo dhawo janaalkayga. Haddaad ku cusub tahay fadlan subscribe ii saar si aad ula socotid fiidiyoyaasha dambe aan soo geliyo, hana iga bakhiilin. Mahadsanid. Waana la wadaagi kartaa saaxiibada si ayagana mataqaanaa ay subscribe ii dhahan ama la socdaan macluumaadkan soo geliyo. Walaalayaal meeshaan waxaan kusoo duubay qada yar aan anagii iyo dhalinyaro saaxiibadeen oo Indonesian ah aan suubsanay. Wadanka waxay ka cunaan cunto oo fresh ah markaas la karinayo, ma yaqaanaa cunto firinjeer la geliyo, microna ma isticmaalaan ama bahalka wax lagu kululeysto qofaan micro aqoonin. Meeshaan waxaan ku jarjarayaa baradhadii oo fresh ah, hadda laga soo jaray beertii. Waxaan u jeedin qashin kasta oo aan mataqaanaa aan basashii ama toontii ama aan ka jaraa horey baan qashin kaga jaraya. Bacdaas hadda ayaa ii taalo, horaan kaga reebaya. Basasha waa u jeedin hadda beerta laga soo jaray. Dhexda waxay ku leedahay wax yar oo madow, waa xididkii oo lagaga soo jaray geedka. Markii laga soo jaray haddaan ka siibaya, aan ka bixiyay basashii, waan jarjaranayaa. Hilibka halkaas iyo waa sii diyaarsaday, waa hilibkii lo'da ahaa. Basashii aad baan u yaryareysanayaa. Haddana waxaan jarjarayaa toontii maanayaan ku dhiganay yaanyadii. Shishidka waxaa ka caafimaad badan yaanya maroleyda. waxaan rabaa cunto aad iyo aad u macaan, maraq aad u macaan inaan kariyo. Haddana yaanyadii baan jarjaranayaa. Yaanyada maroleyda waa caafimaad, hal iska daayaa shishidka. Haddana waxaan fiiqanayaa karootadii oo beerta laga keenay, iyadana waan jarjaranayaa. Cuntada aad iyo aad waxay ugu macaan tahay markii lagu kariyo khudrad. Waan garan karaa dad qaarkood waxay jecel yihiin cunto booshiisa markay karinayaan maraqa ay u karinayaan baastada. Shishid ayay ku dalacaan si ay ugu haysmato. Haddana waxaan jarjarayaa toontii. Xiligan aan wax ku karsanayo gaas waaye, waxaan joogaa wadanka Yurub. Waxaan isticmaalnaa koronto, waa igu cusub yahay inaan maanta gaas isticmaalo, balse wax kasta waa control ayaa waa u jeedin. Waxaan isku daray basashii iyo toontii iyo yaanyadii iyo maroleydii. Waxaan walaaqayaa xoogaa yar. Xoogaa yar hadda waa isku dhalaatay. Mardow waxaan ku darayaa hilibkii. Hilibkan agtiisan waa hilib lo'. Hilibkan ku walaaqaya isku huuriya si mataqaanaa udgoon u yeelato, si mataqaanaa kuugu dhalaato. Dadkana waan u gaabinayaa. Waxaan kaloo ku darayaa intaanan daboolin, waxaan ku darayaa maraq digaag si xoogaa u carfiso. Iyo waxaan kaloo ku darayaa siyaalo yar oo carfiso mataqaanaa maraqa, si hadhowta maraqa aad ugu dhalaalo. Waxaan ku daray hadda waxaan ku daray baradhadii iyo waxaan ku daray karootadii. Biyo yar ayaan ku dardarayaa, waan daboolaya. Xoogaa waan isku huurinayaa, marka waa isku radaysaa. Xoogaa yar waan walaaqayaa si mataqaanaa digsi ugu dhegin. Digsigan aad buu dhaqso u gubanayaa.
aan daboolay waa ujeedin. Wakaas maasha Allah cuntadii waa kasoo tuuray. Waxaan aad arkaysiin waa basbaas aad u kulul oo lagu waxeeyay toon iyo basal. Hadda raggii wakaa qadadii waa kasoo tuuray. Marka maanta waxay cunayaan cunto Soomaali. waa cunto Soomaalida ugu horeeyay cunaan insha Allah tacaala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fadlan walaalayaal like, subscribe iyo saara channelkan saad ula socotiin waxyaalo kala duwan insha Allah tacaala. Ramadaan wanaagsan. Kayak sambal. You guys eat too much spicy. What's the name? Makra. Marak. Marak. Somali marak.